السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu ognahay ama ay tahay inaad ogaato in kalsoonida naftu ay tahay waxyaalaha ugu muhiimsan ee qofku nolol fiican oo ku noolaado isla sidoo kalena guul uu nolosha ka gaaro. kalsoonida waxaan u jeedaa markaan leeyahay ama qeexisteedu noqonaya inuu qofku naftiisa u aamino isla sidoo kale uu aamino awoodaha uu Ilaahay u siiyay. waxa laga rabaa inuu qofku si fiican ugu kalsoonaado ama uu u jeclaado wixii Ilaahay u siiyay, haday jirkiisa tahay, haday qaabkiisa ay tahay, iyo haday dabeecadiisa inta ay tahay. معنو كورهم مينا وحي قلتان لكن وحي إلهي كسيه أبوره وحي إلهي كسيه كرتيه سيدي ده اللي ونقو تاس أو حلوية غرنا كالسوني ده أرنتاس محا فايدة قفكم حوك فايدة هدي كالسوني ونكسن وليا كالسوني ده وحبدان بلغ فايدة وحكمي ده إن دادك كالسوني ده بدان له نفتو ده كو كالسوني أي قوشا يقودويهين كو كلا نفتو ده كو كالسوني أرجع كلام مهم كفايدة هو حوي حتى تكلسوني في عنا النفط هذا تكلم هاي تتكوي كوجو قدرنيا أقف كنفتي سانكو كلسونين أي أمثلة نفتي صدعيف هاي تاي تتكون قدرن مايا أدجى نفط هذه قدرن ماي عد كلاك السجن إنك قدرسه كلسوني ده حكي تاي النفط هذا أتفهمته محيبة تكون أكسنت سادوسي حوتشو محيبة كل ده سياد سجدسته سداو قد فهم كنفط هذا حيالها وحوي كساعدة أيوة حكم ده إن تكلسوني ونأكسن aad naftaada ka haysatid kalsoonidu qofka waxay ka saacidaa inuu qofku u adkaysto waayaha kala duwan ee nolosha marka qaar noloshu ma macaanayso way kugu adkaanaysaa xanuun iyo faqri iyo busaarad iyo dhibaatooyin kala duwan baa kugu dhici kara qof kalsooni buuxda haysta mooyaane qof kale ka bixi maayo sida awgeed kalsooniduna waxyaalaha ay keento waxa kamid ah in qofku adkaysi u yeesho oo nolosha uu yeesho kalsoonida naftu waxay keensanaysaa iyaduna faa'iido aad iyo aad kale muhiim ah in qofku markuu naftiisa uu ku kalsoon yahay inuu qofkaasi si fudud u noqon karo hogaamiye oo marnaba hogaamiye noqon kari maayo oo dad hogaamin kari maayo waxna u noqon kari maayo qof aan naftiisa ku kalsoonayn aaminsan inuu ducuf yahay inuu bila arrin yahay inuu khariban yahay inuu hooseeyo sababta kalsoonidu waxay leedahay muhiimad weyn inuu qofku barto sida loo kobcinayana waxaan oran karaa waqtigan hadda la joogo waxyaalaha muhiimka ah ee xataa hadii dugsiyada ardayda yar yar lagu bari karo ay tahay in lagu baro kalsoonida markaynu ka hadlayno rasuulkeena calayhi salaatu wassalaam waa macallinkii koobaad ee noloshu kalsoonida si fiican buu saxaabadiisa iyo dadkiisa uga dhisi jiray balaynu eegno waa marka koobaad magacyada saxaabadiisa markuu arko magacan in wax khariban uu ku hoos jiro uu bedeli jiray maalmaha kamid ah saxaabi baa u yimid nabiga inantiisii wata saxaabigaasi rasuulku wuxuu weydiiyay inantaadan magaceed dabadna wuxuu yiri caasiya ayaa la yiraahdaa caasiya garan ma magaca waxa lagu bixiyay rasuulku wuxuu arkay caasiya inaan magac saxaan ahayn wuxuu yiri may waa jamiilo weey halkii baa inantii lagu bixiyay جميلة لو بحي مقاعي فربضن أو أن كان هين يا صحابة رسولك عليه الصلاة والسلام رسولك سببوها إن اللي يسكب التلان ومقعك هكا لكون أكثر رسولك وبدله رسولك عليه الصلاة والسلام في الرمات تجن ودري تشري أما ستة وصبوا وش يجي ترى الصحابة دي عمر بن الخطاب رسولك عليه الصلاة والسلام كل شيء هدي نبي قد ضبيلها عمر بن الله أبو بكر رسولك وحكوت المامي هدي عند صاحب نبه عن كدقن لها وحكدقن لها أبو بكر وحو رسولك قلت المام أبو عبيدة إنه أمين هذه الأمة والصحابي قال وأمانة بدن لي أمتنا رسولك وحو قلت المامي أن صحابي يرى معاذ بن جبل إنه يهي أمتنا عدة أتقى حلال إيه حاران إنه معاذ بن جبل يهي صحابي ذا أمرك السيدة اللي قوله هذا محد كلها إنه تتكاس نغنيا طبعا ده قامي يلبين نغنيا اللي هو دتك السوني دي سفي عن رسولك ولسي كلسوني ده وحيانا عكسه وحكم ده أمانة نفط لكن حديدا رسولك عليه الصلاة والسلام وحكان صحدي إنه أورنشري أما بو يري أنا سيد ولد آدم ولا فخر نبي آدم روح أوبط علي أنا قال نيك أبو سيد سنبنا نني قصر هي مجرته فاني أمانة يا جماعة بمعنى له شيء من سيلته يم يقامك وتاجيه صحابة رسولك عبد الله بن مسعود وكلا يحورنشري مركو ورمايو مركي ده أهرنا اعتماد ده كان سنة أنا وحنا هاي الصحابة نينك أقوم تبضن مركي تك كتاب كيلهاي يعني كتاب كيلهاي عندك قطع برضه فنيسة ويجا أقوم بدن حبيبي راح تمشرته كبر كماها ودوه رسولك عليه الصلاة والسلام يردي سي عبد الله بن مسعود لكن وقفك إنه موتشي وحيسه وحعيبه كترتها مشرته وحعيبه كترتها مشرته يعني حتى بي اتش دي هولدر هاي واحد مشكلة ما لقينا تكون صغرته بي اتش دي هولدر أما بي اتش دي حتى دي دال دبعات صغرته وحعيبه لا دي مشرته هدي لهي ونختاروا كارديجوت كرامة هي أودت أطلع هاي إن تشجعت نختار هبل وحعيبه كتير تهبية راتي من شرته نفط ضبط كلام تقالم سين سلويناتي لكن قفك كالسوني ده وح موتشنا يوح كم ده إنه قفك وحيه موتشيا وحعيبه ما رسولك عليه الصلاة والسلام وحاستانه هاي إنه كشقيسي سحابة ديسة هبوين ككلدون إليهم أيو كشقيسين شري كحفظ يكفي عن وحودر يشري وحلقيبه سيد السحابة يا راشني تمام كمالمات كصبرتي لغة النمدي يهوده
ninka dagaalka ku fiican dagaal ku diri jiray sida abu waxa weeye Khalid bin Abi Walid oo kale sida ogeed rasuulku wuxuu taa uu ku dhisayaa kalsoonida qofkaasi uu leeyahay oo waxa suurtagal Khalid inaan aqoonta ku fiicnayn waana sida ahayd dabcan sida ogeed haddii halka loo diro uu ku hooseynayo meeshu ku fiican yahay loo diraya marka qofkaasi mar walba kalsoonidiisu hay ay ahaanaysa rasuulka kaleey salaatu wasalaam saxaabadiisa dhexdiisa fariimaha taban ee khariban oo joojin jiray saxaabiga Budar la yiraahdo ayaa maalmaha kamid ah mid markaasuu saxaabi buu caayay wuxuu ku yiri hooyadii ku caayay hooyadii oo madoobeyd ay ku caayay dabadna ninkii wuxuu uga soo ashkatooday rasuulka kaleey salaatu wasalaam rasuulku wuxuu ku yiri Budar waxa tahay qof ay ku jirto astaan kamid ah astaamadii jaahiliyadda waa gaalnimadii islaamka ka hor يعني isaga mucaayid laakiin waxa ku dhex jira ee uu sameeyay buu caayay waana waxyaalaha macalinka looga baahan yahay fiican inuu khalad ka caayo oo aan qofka aanu caayin marka arimaha ay soo sheegnay waxay muujinayaan in rasuulku si fiican uu u dhisi jiray kalsoonida asxaabtiisa taas keentay marka inay noqdaan hogaamiyaashii dunida oo dhan qofka kalsooni fiican naftiisa ka qaba ayaa naftiisa wax u taraya ehelkiisa wax u taraya ummadiisa wax u taraya isla sidoo kale islaamka oo dhan wax u taraya qof isagu aan isba aaminsanayn naftiisana wuxuu tarimaayo dad kalena hay fadhiyaan hababkan ayaa qofku u kordhin kara kalsoonida nafta uu ka qabo waa marka koobaad waxa muhiim ah inaad su'aashan naftaada aad mar walba aad weydiiso maxay baad ku fiican tahay waxaan ognahay in qof walba Ilaahay uu siiyay karti u gaara dadka kalena uu dheeryahay marka waxaad mar walba aad ku dadaashaa inaad isweydiiso si aad mar walba aad u samayso waxyaalaha aad ku fiican tahay maxay baad ku fiican tahay mar walba isweydii waxaad ku fiican tahay markaad ogaato macnaheedu waxa weeye qof uu siiyay matiida meel aad ku wanaagsantahay baad jirtay meesha ka soo dhalaal oo iska soo saar oo ku dadaal inaad hagaajiso xiriiriyo caafimaad qaba waa inaad samaysaa xiriirka waxaan ka wadaa yani dadka kugu hareeraysan ee dhinacyada ka xiga waa inay haadaan dad wax way ku dhiirigelinaya ku garab istaagan ku jecel ku taageeraya waa inaanay noqon dad sun ah oo hoos ku dhigaya oo ku liidaya oo waxa way ku mar walba waxa ku hiifaya oo haba yaraatee wax aad fadli iyo dheeraad aad ka leedahay aan kuba qirayn marka ku dadaal in xiriirada wanaagsan ee caafimaadka qabalana aad maal gashato dadka aad arkaysid inaan waxba kaaga soo kordhinna jooji xiriirkooda arrimaha kalsoonida nafta keensanaya waxa kamid ah waxa loo yaqaan diidmada inuu qofku diidmana yeesho waxa la yiraahdaa marka qof la amaanay hebel haana uu leeyahay mayana uu leeyahay bicna waxna waa ogolaada waxna waa u diida hadda laakiin mar walba wax yeesho oo aad noqoto yes man yes ha oo wax walba dadka aad ka yeesho ogow mar walba dadka aad qadariso in ka badan intaad naftaada aad qadarinayso kalsoonida naftaada dhulka galaysa marka waxaad ku dadaashaa Allah ku barakeeyo in marka qaar aad yeelato waxa loo yaqaano may oo aad diidmo yeelato sida haaba aad u leedahay haadaas mar walba iska joogtahay taasi ma baahna waxay xasuusini laakiin ta u baahan in qofku joojiyo waa taa ma yaad koodhan soo joojinaysa naftaada ma yaad koodhanaysa waxa joojinaysa waxa weeye asxaabtaada arkayso in culays ka badan intaad ay ku saarayaan ma yaad koodhanaysa mobilkaaga mar walba doonay inaad gacanta ku hayso dawa ku kaa daryeel naftaada daryeelkeedu wuxuu noqonayaa inaad naftaada aad siiso wixii ay kaga baahan tahay haday raaxad tahay haday nasasho ay tahay haday hurdo tahay iyo haday cunto ay tahay intaba oo waxa la ogyahay oo hubaal ah in nafta si fiican aad u daryeeshay nadaafadeeda iyo quruxdeeda iyo quudinteeda iyo ilaalinteeda iyo nasinteeda intaba aad ku dadaashay dabcan inay kalsooni buuxda iska yeelataa way imanaysaa waana wax keensanay oo arimahaas waxay noqonaysaa sidii chargerka oo kale oo waxyaalihii kobcinayay awoodda iyo heerka kalsoonida ee aad leedahay marka ku dadaal inaad naftaada si fiican aad u daryeesho waxa muhiim ah si uu qofku kalsoonida naftiisa u dhiso waxa loo yaqaan carinta ama challenging in soo ma tihid salaano kale qof ka baqda meelaha sarsare ku dadaal inaad meel sare mar walba aad fusho waxa tahay qof ka baqda inuu kelmad u soo jeediyo dadka khayr ah iyo wanaag naftaada ku cariyo waxa tiraahdaa wallahi marka waan sameynaya waxa salaano kale aad ka baqataa aan ilaahdo Allahumma salli ala Muhammad in wax barashada aad soo bilowdo waxaad leedahay qof weyn baa tahay marka naftu way ku adagtay inay alif looga soo bilaabo war cari naftaada tag mar walba naftaada aad cariso wixii aad ka baxsan jirtay ama aad ka carari jirtay aad samayso waxa hubaal ah in kalsoonida naftaada hagaagayso mar walba ka carartana waxaad iska aaminsan inaad tahay qof fuliya wixii aad ka baqanaysa mar walba ka cararto naftaada waxay iska aaminaysaa inaad tahay fuliyad aan awood badan lahayn marka ku dadaal wixii aad ka carari jirtay inaad ku cararto oo aad naftaada aad ku cariso waxa xikmad wixii aad ka carari jirtay ku carar oo naftaada ku cari xikmada meel ku qoro waxyaalaha kalsoonida nafta kor u qaado waxa kamid ah xakameynta inaad naftaada aad xakamayso xakameyntu marka waxay noqonaysaa inaad naftaada aad ka joojiso waxyaalaha xun oo dhan isla sidoo kale inaad naftaada aad ka joojiso waxyaalaha aan danta iyo nacfiga aan haba yaraatay aanu lahayn hurdada badan cuntada badan eegmada badan
sheekada badan xaasawaha badan internetka badan facebooka badan waxyaalaha noocaas ah fuduul baa loo yaqaanaa wax kasto intii loogu talagalay ka baxay inaad yarayso xakamayso waxa weey waa muhiim taasi marka waxay keensanaysaa in kalsoonida naftaadu ay buuxsanto laakiin haddaad heegaad u sii deyso waxaad ogaanaysaa inaanad waxba ahayn waxa taa si fiican maanta inooga warrami kara dad iyagu chatka cuna ee iskantroli kara waxa si fiican uga warrami kara dad iyagu khamri cabka ah si aan iskantroli karin dad iyaga baraha bulshada ku asaasay ee aan kantroli karin dad iyagu galmada iyo zinada waxa weeye joogtay ee iskantroli karin dadkaas si fiican uga warrami kara in kalsoonidu ay digada tahay waayo naftoodu bay kantroli kari waayeen waxyaalaha muhiimka ah qofka kalsoonidiisa dhisay waxa kamid ah in qofku yool u dajisto meel iyo higsi adoonayso inaad gaadho ama ha ahaado wax fog ama ha ahaado wax dhowi ugu yaraan inaad wax meel dhigataa dabeedna waxa aad maalin walba maalinta ka dambaysa aad ku dadaashay inaad meeshii aad gaadho taasi waxay keensanaysaa iyaduna kalsoonidaada dhisanto marka waxaad ku dadaashay in yool la'aan ama hadaf la'aan inaanad noolaan ku dadaal arrinta iyada in badan waxaynu aragnaa in waxyaalaha waxay kalsoonida dila waxa kamid ah isbarbardhiga inuu qofku cid kale uu isbarbardhigo marka waxaad ku dadaashaa cidaan naftaada hayna barbardhigan cid kale haday wax akhris noqoto haday wax dhigasho noqoto haday shaqo noqoto hatta haday lacag noqoto waxyaalaha baraha bulshada dadku mar walba la soo dhigay waa fake waa been hadda dogtii hadii aan adagayba nin wali wuxuu soo dhigay inta ugu macaan nin wali wuxuu soo dhigay inuu isleeyahay dadka kale isaga dhaadhici marka adoo miskiina oo inaan marnaba inaan ku degsoomin isla barbardhigin dadka kale adiga noqo oo cid kale noqon halka isaga ah waxaan kugu soo gudbiyay kugu soo sheegay kugu soo tilmaamay arrimo aad iyo aad u farabadan arrimahaas oo rajaynayo inay wax ku tari doonaan adigana kalsoonidaada kor ay u qaadi doonaan haddaad inuu isleeyahay wax ku taray muuqaalkan isaga comment wanaagsan ka bixi isla sidoo kale like saar asxaabtaada wanaagsan aad jeceshayna u dir waa intaas iguna si fiican ay wax ugu taransadaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh